سلامتهين يسفرشل في بعض iyo dhamaan bulshada meesha isugu timi xildhibaanada ku jiraan haddaan soo yaro koobo mawduuca ugu muhiimsan wuxuu ahaa doorashada Soomaaliya maxaa hortaagan aniga aragtidayda magacayga waxa la Maxamed Cabdi Faarax Looyaan aragtidayda haddaan ka hadlo doorashada Soomaaliya waxa hortaagan ama dadka wax doorasho ay qabaan laba arrimood arinta koowaad oo ah gacmo shisheeye arinta labaad oo ah qolo waxay dhacaan bartay haddaan tusaale yar soo qaato nin reer miyo geel ilaaliya ayaa hal buuran ka bukood guriga hor fadhiis soo geeli ka daba tagi rabaa dumarkii xaafadda intay soo shireen waxay dhaheen hashan waxa laga yaabaa inta geel ku maqan tahay inay duun yeerto ama baqtide hashan noo bire waa diiday oo dhowr jeer ku soo wareegoon waa ku yar qaylqayliyeen oo dabadna wuxuu yiri dumarkii buu dhingaday wuxuu yiri halkan hashan agoon baalay markii hore uu sheegay hashan agoon baalay mana bireynayo way ka diideen wax hashan noo bire markay mabdii ka diideen waa dhingadeeyay wuxuu yiri waan u sheegay hashan agoon leedahay hilibkii oo duuban baa u muuqanaya ma hadal baa soo leeyahay horta qola waxay dhacaan bartay oo wax u muuqdaan iyo qola gacmo iyo gacan shisheeye labada arrimood ayaa doorashada Soomaaliya hortaagan marka aragtida soo koobay labada wasiir oo saaxiibadii hore ahaa Cabdirashiid Xidig iyo labada xildhibaanyaha salaad haddaan tusaale yar u soo qaato oo shacabka Soomaaliyeed ka aaminsan yahay in abwaanana bulshada ku dhex jira mahad iyo xidig waxay ahaayeen xidigna wuxuu ahaa wasiir dawlaha arrimaha gudaha mahadna wuxuu ahaa wasiir dawlaha madaxtooyada laba wasiir bay ka ahaayeen dawladdu hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu aaminsanahay haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay xukuumadan hadda jirta ama dawladdu uu farmaajo hogaamiyo inay wasiir ka waayeen markii wasiir ka waayay sida darteed xanaaqsan yihiin marka waxaan tusaale yar haddaan ku darsado hal kalma ku darsanay hal kalma ku darsanay tusaale haddaan soo qaato maanta shacabka Soomaaliyeed waxbay aaminsan yihiin waxbayna arkaan waxbayna kala madaxweynahoodii wuxuu ahaa ninkii intuu tagay fiilo baydhabo saraakiisha Soomaaliya shiriyay yiri qofkii aan $100 ku shaqeynaa ha iska tago ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ku niyad jabeen shacabka Soomaaliyeedna waa ku niyad jabeen maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xuduudaha difaacayaan shacabku waxa uu arkaa marka mar rabno nin shalay aanu aragnay nin baa aroortii hagoogtay oo baxay galabtiina uu soo hagoogtay waxa la sii hagoogtay waa unkiisi marka in la soo hagoogto shacabka Soomaaliyeed ma ogolin shacabka aanu ku hadlaynaa waana mahadsantihiin way gadaalangeena gabadha u dhiibanaa iyo wiilkay bismillah